بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت wanaagsan dhammaan asxaabteeda qiimaha badan meel kasta oo adduunka ka joogtaan. Ku soo dhawaada qaybta afaraad ee barnaamijkeena 10 iyo cibro oo aan ugu talagalnay inaan ku fiirino guriyihii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo xaasaskiisa tacaamulkii iyo qaab nololeedkii dhex marayay si aan uga qaadano 10 aan ku dabaqno nolosheena. Haddaba waxaan ka soo bilownay hooyadan Caaisha radiyallahu anha ayada iyo xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam mawaaqiftiisa oo kala dhex martay. Waxaan ka soo hadalnay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo Caaisha markay ay wada sheekaysanayeen sida xiwaarkooda iyo wada sheekaysigooda uu ahaa oo aan tusaale ahaan u soo qaadanay xadiiskii Zarci. waxaan sidoo kale ka soo hadalnay sida masayrka xaaskiisa uu u maareeyay nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. qaybtii saddexaad waxaan uga soo hadalnay sida marka qoyska azamad ama musiibo weyn ay soo food saarto loo xalliyo. maanta qaybtan afaraad waxaan uga hadlaynaa qayb kale oo ka mid ah noloshii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo Caaisha. waana noloshii ku dhisnayd jacaylka iyo romansiyada sida dabcigeena ahba nolosha nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ka fiirinaynaa meelo kala duwan, dhinacyo kala duwan. marka aad halkaa marayso waxaa ogaanaysaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam noloshiisa ay ahayd nolol mutawaasin ah, nolol isku dheelitiran, nolol marmarka qaar masayr, imtixaanaad, dhibaatooyin ay soo food saaraysay iyo nolol sidoo kale jacayl iyo romansiyad ku dhisnayd. haddaba maanta waxaan xabiibkeena iyo Caaisha radiyallahu anha ka baranaynaa romansiyada ama romantiknimada iyo jacaylka ka dhaxeeya labada qofood ee qoyska ah sida ay iskugu muujinayaan iyo sida xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam uu ugu muujinaya Caaisha radiyallahu anha. Dr. Salman bin Fahad al-Auda ilaahay xabsiga ka soo furay wuxuu leeyahay dastuurka nolosha qoysnimo ee guur waxa uu ku dhisan yahay oo uu ku dul wareegayaa 3 waxyaabood. 3 waxyaaboodna waa 3 cashir oo aan gurihii nabiga ka baranayno sallallahu alayhi wasallam. waxa uu ku tilmaamayaa tan koowaad inay tahay al-xiwaar oo ah in dad labada qofood ee wada joogta ay wada hadlaan, ay wada sheekaystaan. xiwaarka uu sheegaya sheekhana kama wado biilka inta ka soo dhig iyo ka dhigi maaye, waa xiwaar noloshoo dhan ma aragtay ka hadlaya mustaqbalkooda, takhdiidka, awlaada. tan labaad wuxuu leeyahay waa al-xub, waa jacayl la isku muujinayo romansiyad ku dhisan. qofka waxaa laga yaabaa inuu qofkan jecel yahay laakiin ma tusaayo inuu jecel yahay. jacaylkaasi waa mid qarsoon. waxaa la rabaa labada qofood ee wada jooga inay jacaylkooda isku muujiyaan sida aan ka baran doono xalaqadeena maanta oo ku saabsiisan romansiyadii iyo jacaylkii muuqday ee nabigeena iyo Caaisha radiyallahu anha ka dhaxeeyay. nambarka 3 wuxuu leeyahay waa at-tadxiya, yacni dastuurka nolosha qoyska ay ku dhisan tahay waa xiwaar, xubbi iyo tadxiya. tadxiyadu waxaa weeyaan nafhurnimo, in gabadhu wiilkan horumarkiisa ma aragtay inuu wax fiican helo ee wax kasta u hurto. saas oo kale in wiilku xaaskiisa sidii horumar iyo bashbash iyo baraare iyo barwaaqo ku gaari lahayd oo ay sacaado ku dareemi lahayd inuu wax kasta u huro. ma ahan in labada qofood ee wada joogtay wax kala qarsanayaan ama ay wax isku ogoleen ama ay isku danaysanayaan ama interest oo kaliya oo isku keenay. waa in labadan qofood maadaama wixii uu qaalisanaa ee laba qof dhex mari kara, cilaaqadii ugu dhaweyd uguna qaalisanayd ee laba qof dhex mari karto oo guur ah ee dhex martay, waxaa laga doonayaa inay tadxiyo la yimaadaan. sidaas oo kale marka laga hadlayo nolosha guurka, culimada cilmu nafsiga markay ka hadlayaan waxay dhahaan waxaa jiro xaajaad iyo baahiyo mid kasta uu leeyahay wiilka iyo gabadha. qof walbana waxaa laga rabaa si noloshoodu ay mutakaamil u noqoto in qofka kale baahiyaha uu leeyahay uu buuxin karo. laakiin goormee ayaad buuxin kartaa qof kale baahiyaha uu leeyahay? waa marka aad barato oo aad og tahay xaajaadka qofkan uu u baahan yahay. waxay noqon kartaa baahi jir ahaaneed, baahi nafsad ahaaneed iyo baahi dareen ahaaneed. saa darteed xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu fahamsanaa in xaajaadka qofka dumarka ahi ay ka mid tahay in loo tuso in la jecel yahay, in la tuso in ay ihtimaam la siinayo. sidaa daraadeed kaale aan wax yar u fiirsanay axaadiistana Caaisha radiyallahu anha iyo asxaabta ay warinayaan. xadiiska koowaad Caaisha radiyallahu anha waxay leedahay xadiis saxiix ah oo Imaamu Muslim uu ku warinayo saxiixiisa.
waxay leedahay maalin maalmaha kamid ah ayaan weel wax ka cabaayay anigoo xayd qaba yacni dhiigii caadada uu ii joogo kadibna koobkii wax ku cabaysay koobkii aan wax ku cabay ayaan u dhiibay bay tiri nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabigana koobka wuxuu ka cabay positionkii ama booskii ee Caaisha afkeeda saartay oo ay ka cabtay sidaas oo kale Caaisha waxay leedahay waxaa dhacdo marmar inaan laf hilib ah goosto oo aan cad hilib ah qayb ka goosto markaan qaybtii kale nabiga u dhiibana wuxuu goosanahay sallallahu alayhi wasallam meeshii aan cadka hilibka ka goostay yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam iskalama weyna xaaskiisa Caaisha radiyallahu anha bal wuxuu wax ka cabayaa koobka meeshii wax ka cabtay wuxuuna hilibka ka cunayaa meesha ay Caaisha ka goosatay radiyallahu anha Caaisha waxay noogu daraysaa xadiiska waxay ku leedahay anigoo waliba xayd qaba yacni mees waxay burinaysaa dhaqan qalafsanaan ah oo inta badan dadka ay lahaayeen oo gabadhu markay xaaladkaas ku jirto kale inaan loo dhawaanin dhaqamada adeega dadkeena dhaxmaray inkastoo waayadii dambe dadka magaalka jooga ay ku soo yaraatay waxa weeyaan in labada qofood ay wada joogtaa ay aad u kala fog yihiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka uu sifeynayay labada qofood ee wada joogta wuxuu ku tilmaamay inay isku yihiin dhar marka culimada ay tilmaamayeen dharka meesha uu u egyahay nolosha guurka ahna waxay leeyihiin maadaama dharku uu jirkaadi u dhow yahay oo jirkaada iyo dharkaada uu ka dhaxeeyo wax la yiraahdo taqaarub jasadi ah sidaas oo kale labadan qofood ee wada joogtana waa labada qofood isku dhow dadka adduunyada jooga waxaa ka dhaxeeya taqaarub jasadi ah oo dadka kale aan kala dhaxaynin marka ajsaadu isku soo dhawaato ayeen arwaaxdu isku soo dhawaataa oo quluubtu ay isku soo dhawaataa siyaabaha xabiibkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam oo Caaisha ku tusi jiray booska iyo darajada ay ka leedahay waxaa kamid ah in nabigu uu u taagnaado sidoo u qanciyo Caaisha xaajaadkeeda Caaisha radiyallahu anha waxay xadiis saxiixa ku leedahay niman xabashi ah ayaa waxay ku ciyaarayeen masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam dhinaciisa nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu taagnaabay tiri qolkeyga albaabkiisa kadib bay Caaisha waxay leedahay rag dadka ciyaaraya ayaa waxaan ka fiirsanayay nabiga calayhi salaatu wasalaam garabkiisa inta soo istaagto oo halkan wajiga ka soo baxsato ayay daawanaysay dadka ciyaaraya yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam uu taagan yahay wuxuuna u suran yahay oo u taagan yahay in Caaisha radiyallahu anha ay daawato dadka ciyaaraya Caaisha waxay leedahay xadiiska dhameystirkiisa nabigu kama dhaqaaqaynin meeshaas ilaa aan aniga ciyaartiis ka soo bogto oo aan soo noco kadib ayuu nabigu ka tagayay sallallahu alayhi wasallam yacni anigoo u baahan wali inaan daawado ciyaartii nabigu igama dhaqaaqaynin sallallahu alayhi wasallam Caaisha waxay leedahay riwaayad kale nabigu wuxuu dhahay Caaisha ma bogtay oo ma ka dharagtay daawashada ciyaarta markaas aan dhahay way tirnaa maxamed wali wax waa ii dhiman Caaisha waxay leedahay qasadkayga ugu weyn ma ahayn ciyaarta daawashadeeda laakiin waxay ahayd bay leedahay inaan ogaado booska aan xabiibka maxamed sallallahu alayhi wasallam ka joogo muujada xaajada qofka dumarka waxay jeceshahay qofkan darajada iyo qiimaha agteeda ay ku leedahay qofku inuu u muujiyo oo uu tuso nabigana calayhi salaatu wasalaam iskama waaline wuu sugay ilaa Caaisha radiyallahu anha ay ka dharagtay oo ay ka daashay sallallahu alayhi wasallam waxyaabaha cilaaqada jacayl ee Caaisha iyo nabiga ka dhaxaysay sallallahu alayhi wasallam si adkeena waxa kamid ahaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ogaa xataa mararka kala duwan iyo xaaladaha kala duwan ee Caaisha marayso yacni la tacaamulkiisa iyo la dhaqankiisa waxay keentay inuu u fiirsado inuu kala saari karo marka Caaisha nabiga ay ka raali tahay iyo markay u xanaaqsan tahay Caaisha waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ugu yiri Caaisha markaad iga raali tahay oo aadan ii xanaaqsaneen iyo markaad ii xanaaqsan tahay waan aqaanaa waxaan ku yiri bay tiri Caaisha radiyallahu anha sidee ayaad ku taqaanaa nabi maxamedow nabi wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam markaad iga raali tahay ee aadan waxba ii qabin waxaad leedahay laa wa rabbi maxamed markaad dhaaranaysid waxaad leedahay waxaan ku dhaaranaa nabi maxamed allahi abuurtay ayaan ku dhaaranaa ayaad leedahay laakiin marka aad xoogaa yara ii xanaaqsan tahay waxaad leedahay buu yiri laa wa rabbi ibraahim waxaad ku dhaaranaysaa waxaad leedahay nabi ibraahim rabbigiisa ayaan ku dhaartay ayaad leedahay yacni marka nabiga raali ka tahayna nabiga magaciisa ay soo qaadaysaa waxay leedahay wa rabbu maxamed nabi maxamed allahi abuurtay ayaan ku dhaartay marka
aysan nabiga xoogaa yar ka raali ahayn u xanaaqsan tahayna waxa iska ilaalinaysaa magacii nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxay leedahay warabbu ibraahim. caaisha waxay leedahay haa wallahi rasuulka ilaahiyow waxaan iska ilaalinayaa bay tiri markaas aan xanaaqsanahay magacaada sala allahu calayhi wasalam. u fiirso sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u bartay xaaskiisa ilaa uu kala saari karo marka ay xanaaqsan tahay iyo marka ay raali tahay. waliba si kalena kuma kala saaraya hadalkeedii ayuu u fiirsaday sala allahu calayhi wasalam. muxuu nabiga ugu sheegayaa caaisha radiallahu canha? muxuu ugu sheegayaa marka laga soo tago nabiga inuu arrintaa ogyahay inuu sheego, haddana sir kale oo weyn ayaa meesha ku jirta. sirtaas waxaa weeye caaisho tafaasiisha noloshaada saan ula raacay oon ula socday waxay keentay xataa inaan kala saari karo markaad ii xanaaqsan tahay markaad ii xanaaqsanayn anigoo hadalkaada fiirinaya. yacni sida nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha nabiga uu hadaladeeda u fiirinaya, ihtimaamka u siinaya, tafaasiisha nolosheeda ula raacay waxay keentay in xataa adaqi tafaasiil caaisha radiallahu canha uu ka barto. meeshaa marka waxaa noogu jira darsi aad iyo aad u muhiima, in qofku qofka kale uu akhriyo, inuu fahmo. ficlan mucaasharada iyo nolosha dheerna waxay keenaysaa in qofkan qofka kale uu barto. nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha wuxuu ahaa sidoo kale mid daliciska waxaa la wadaa yacni mid hadallada u jilciya, u hadal macaaneeya. nabiga caaisha markuu u wacayo wuxuu dhihi jiray yaa xumayraa tii yaree casayday. ereyga yacni xumayraa waxaa laga wadaa qofku markuu cadaan iyo gaduud yar isku daro, waana midabka aad iyo aadka u quruxda badan. nabiga wuxuu dhihi jiray marka yaa xumayraa tii yaree casayday. magaceeda markuu u wacayo nabiga naahiblaayo ma la boodi jirine magaceeda wuu tasqiirin jiray, wuxuuna dhihi jiray yaa caaisha yareeyey. yani yaa caa'ish waa tasqiiru caaisha, macnaheedu maxaa waye caaishadii yarayday. xumayraa waa tasqiiru xamraa, waa tii yareyd ee casayday. fiir sida nabiga calayhi salaatu wasalaam magacyada xataa uu kala dooranayo sala allahu calayhi wasalam. nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha marka ay ka xanaaqdo oo ay wax ka dareento garabkeeda ayuu gacanta ka saari jiray. yacni gacantaas waa gacan naxariiseed waay. markaas ayuu u ducayn jiray sala allahu calayhi wasalam. wuxuu dhihi jiray allaahuma اغfir laha danbaha wadhab gayda qalbiha wa acidha min alfitan. ilaahow dembigeeda u dhaaf, qalbigeeda carada iyo xanaaqa ku jirtana ilaahu ka tagsii, fitnooyinkana ilaahu ka magangeli. yacni u ducayn jiray, ilaahay wuxuu u beri jiray caradan qalbigeeda ku jirta inuu ilaahay ka dhaqaajiyo sala allahu calayhi wasalam. waxyaabaha xabiibkeena maxamed sala allahu calayhi wasalam ku tusaayo inuu aad iyo aad u fahamsanaa ixtiyaajaadka iyo xaajaadka xaasaskiisa waxaa ka mid ahaa caaisha waxay ahayd qof dhalinyaro ah, qof yar ay ahayd. nabigana calayhi salaatu wasalaam qof weyn ayuu ahaa, laakiin inuu qof weyn ahaa kama celinin inuu fahmo oo uu dareemo xaajaadka caaisha radiallahu canha ay leedahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogaa qofka dhalinyarada ah inuu qof u baahan inuu yahay ciyaarta kaftanka. saa darteed ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha la tartami jiray. tartan orod ah ayuu la bixi jiray, wuu la ciyaari jiray sala allahu calayhi wasalam. saxaabigii markuu la dardaarmaya wuxuu ku yidhi hallaa bikran tulaacibuhaa wa tulaacibuk. maxaad u guursan weysay gabar yar aad la ciyaarto ayadana kula ciyaarto? mees waxaad dareemaysaa dadka dhalinyarada ah waxyaabaha noloshooda qurxinaa waxaa ka mid ah lacibka iyo ciyaarta. nabiga ma dhihin calayhi salaatu wasalaam aniga waxa waa ka weynaaday, laakiin u fiirso asagoo safar ku jira oo caaisha ay la socoto oo safar lagu jiro ayuu ciidankii amray inay xoogaa yar kasii hormaraan. asaga iyo caaishana way isla hareen. markaas ayuu caaisha ka codsaday inay tartan orod ah ay galaan, bal labadooda kii orod badiya. subxaan allah, yacni laba qof inay orotamaan waa wax caadiya, inay tartamaan waa wax caadiya. laakiin fiiri nabiga calayhi salaatu wasalaam xaaladda uu ku soo xasuustay caaisha radiallahu canha inuu la ciyaaro waa isagoo safar ku jira. safar sidee ah? safar bilooyin lasii soconayo oo lasoo soconayo, dhulka la lugaynayo, ciidan lala socdo ayuu nebigu weliba wuxuu buuxinoyaa xaajaadkii ee xaaskiisii u lahayd caaisha radiallahu canha. markaas ayuu leeyahay caaisho nakeen aan orod galnay tartan orod ah
aan galnay nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaas oo kale waxyaabaha uu ku tusi jiray Caaisha radhiyallahu anha waxaa ka mid ahayd iskalama weyneen oo ma aragtay kama ash jirin duruufaha kala duwan ee Caaisha ku nooshahay radhiyallahu anha. Caaisha waxay leedahay nabiga ayaan timaha u shaleynayay anigoo xayd qaba, nabiga ayaa dhabtayda ku jiifanayay anigoo xayd qaba, nabiga ayaa igu soo tiirsanayay igu soo santeecsanayay wa ana xaa'id. subxaanallah nabiga mees darsi buu nasiinoyaa labada qofood ee wada joogta in laba qof oo kala ta'afuf iyo maaragta ash iyo kala dheeraasho dareemaya maahane fa kullamaa taqaarabat alabdaan kullamaa taqaarabat alarwaax. intaa kaliya ma ahayn xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasallam xaasaskiisa si guud ahaaneed waa Caaisha radhiyallahu anha wuxuu ka caawin jiray howlaha guriga iyo waxyaabaha guriga ee culays kale kuma fiirsan jirin. marka uu guriga yimaado nabigu indhaha kama eegan jirin. Caaisha radhiyallahu anha markii la weydiiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam muxuu guriga ka sameyn jiray banaanka markii la joogo asxaabta way ogaayeen, laakiin waxaa la weydiiyay xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasallam guriga markuu joogo muxuu sameeyaa, markaasay tiri kaana fii mihnati ahlihi. nabigu wuxuu ahaa mid u shaqeeya ehelkiisa oo howlaha la qabta. xadiis kale Caaisha waxay ku leedahay kaana basharan min albashar, nabigu wuxuu ahaa mid bini aadamka ka mid ah yaqiidu thawbahu dharkiisa ayuu toolan jiray sallallahu calayhi wasallam wayaxlubu shaatahu ridiisa hadduu caano uga baahdo waa soo lisan jiray wayakhdumu nafsahu naftiisana waa u khudmeynay. intaasoo dhan waxaan kusoo koobaynaa xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasallam ma qarsan jirin jacaylka uu xaaskiisa u qabo. Camar bin Caas ayaa maalin weydiiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam nabi maxamedow dadka yaad u jeceshahay, markaas ayuu ku yiri Caaisha radhiyallahu anha. nabigu lama dhuumanin ma qarsanin Caaisha ayaan u jeclahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam Camar bin Caas wuxuu yiri yaa rasuulallahi raggaan ku weydiiyay haweenka kuma weydiinin. nabigu wuxuu yiri aabaheed ayaan u jeclahay, sida nabiga xididkeeda u sharfaayo iyadoo uu saaxiibkii khaaska ahaa iyo sida gabadha jacaylkeeda uusan ula dhuumanaynin ayaad ka dareemaysaa xadiiskaas oo aad ka baranaysaa. baynamaa dadka qaar xaaskiisa ama zawjkeeda magaciisa ay la xishoonayso ama aysan soo hadal qaadi karin ama qofka kale asagoo laga yaabo inay intaa wada joogeen maalin maalmaha kamida uusan u sheegin inuu jecel yahay ama uusan dadka tusin inuu jecel yahay. dhaqamada Soomaaliyeedna waxaaba kamid ahayd qofku inuu ka cararo wax walba oo tusaya inuu qofkan jecel yahay asagoo ka cabsanaya in la yiraahdo hebel wuxuu jecel yahay heblaayo oo xaaskiisa ah. baynamaa nabigeena calayhi salaatu wasalaamna uu banaanka la yimaadayo oo asxaabtoo dhan ay wada ogaayeen in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu Caaisha radhiyallahu anha jecel yahay. halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa qaybteen maanta oo aan uga hadlayno romansiyadii iyo jacaylkii xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasallam iyo Caaisha radhiyallahu anha dhaxmari jiray. aad iyo aad u mahadsantihiin, aad iyo aad waa idin salaamayaa. nabigeena calayhi salaatu wasalaam aan ka dhigano xidiga sare ee aan daawanayno oo aan ka qoranayno duruusta nolosheena aan ku dabaqi lahayn si nolosha adduunyada iyo midda aakhirada aan ugu noolaano sacaado iyo farxad iyo liibaan. aad iyo aad u mahadsantihiin, aad waa idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.